بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ما أنت إن شاء الله تعالى أرين يرو كوبا طبعا سامعين هذا بلارنتهاي مركا أن سومالينا هنا يعني محنقول هاي لأن يردنا آدي وهذا الهيان حق السوشيال ميديا أما محنقول هاي يعني كأركيس التلفزيون هذا قارة وكهالله وحلا متكا وحيت هو الرومانتيك وحنا إدها رومانتيك أريجان سامعين وحكم إذا أولا هرتا أي قارة النقوية لتهي سهدان أفيرنا dhinac waa iijaabi waa wax wanaagsan dhinacna waa salbi oo wax xun ama positive and negative labadaba uu yahay muxuu ku yahay maxaa positive maxaa negative awalan marka yaani qurbaha la yimid ee dibadaha la yimid waxyaalaha la arko waxa kamid ah yaani nin ina gaala ah wiil iyo gabadh dhalinyaro gaala ah oday iyo maxaan ku rahay maamo gaala ah oo gacanta is haysta muqaayadaha isla tagaaya maxaan ku dhahay isu qoslaaya maxaan ku dhahay xaflad dhalasho iyo maxaan ku dhahay isla qaybsanaya jidadkii wada socda meel miiskii isla fadhiya macnaha kursiga isla fadhiya yani saameyn noocaas oo kale ayaa waxa ay nagu reebtay nolosheena arinta ay nagu reebtay inayna saameyso kow waxaad ogaanaysaa horta awalan ereyga Soomaali ay dhahdo halkan run ku yahay meeshan aan ku dabaqaynaa ereygaasi asal ahaan diiniya uma wanaagsana laakiin halkan hadda waan ku dabaqaynaa oo waa run wuxuu u run yahay marka aan idin sheego ereygan waa kee ama mahmaahda waa tee Soomaali waxay dhahan yacnihi been ayaa lagu soo xarageliyaa runna waa lagu dhaqaa sidaasay dhahan hadda marka ay xaqiiqada aan u laabano oo aan leenahay arintan waa runo waxaan run u tahay yani waxay run u tahay marka ay gaalada dhinaceeda aan fiirino maxaa yeelay bal imisa taqaanaa ila gaalana saameysay waan aragnay romantic ibraayi aanan macnaha hore aanan yacnihi mujtamacaadkeena afkooda inta badan aynan ku hadli jiraan ku hadalnaaye annagoo markaasi fiirinayna maxay waxyaalaha indhaheen ay qabtaan oo arkaan waxaan eegaynaa marka imisa taqaanaa ama aad aragtay nin iyo naag gaala ah wiil iyo gabar gaala ah oday iyo xaaskiisa gaala ah xaaskiisa yaan dhihin cafwan ereygaasi xaaskiisa waa taan rab inaan kaga hadlo weeyaan intaasi marka aan fiirino gabadha iyo wiilka ninka ee naagta ma yihiin horta kuwa isqaba waxay ku jiraan waa maxay wixii anaga dhahaynay ama Soomaali ay dhahaysa yani been ayaa lagu soo xarageliyaa boyfriend girlfriend intaas weeyaan marka qof boyfriend iyo girlfriend jilitaankii ku jiraan macnaha marxaladan ay ku jiraan waa marxaladii jilitaanka dariskaada hadday gaala yihiin ee markaasina isqabaan qabitaan isqabaan ama ay yihiin kuwa markaasi yani maxaan ku dhahay yacnihi adiga dowladda ahaan u qoran social partnership macnaha ama maxaan ku dhahay yani dad adiga yani waxooda ay cad yihiin qoraal noocaas oo kale ah dhinaca maxkamadda ka timid ama dowladda ka timid ay noloshooda ay sidaa tahay macnaha sida ay ku wada joogaan waxay u dhaqmaan taqriiban ayaan dhihi karaa sida annaga Soomaaliyeena u dhaqano oo dabcan laga yaabo qaarkeen in isku eedayaan waxay tahay macnaha badana waxaan aan arkayno horta waa jilitaankan indhahan ka aragnaa sida filimada loo jilo waxyaalaha qaarkiisa maxaan ku dhahay editing loogu sameeyo ama maxaan ku dhahay photoshopka la sameeyo qofka suuradiisa la bedelo ama asagoo maxaan ku dhahay 20 macnaha dabaq ka soo booday sida qof meel caadi ka soo booday oo kale loo ekaysiyo waxaana editing lagu sameeyo macnaha masaxan dhehna marumba ma aha waxyaalaha la jarjaro مثلا waxyaalaha la jarjaro marumba ma aha hadalka haduu toosan yahay hal xabba uu yahay aan la kala jarin qofkan intuu ka socday halkaas uu aaday aan la kala jarin waa sax laakiin ka waran arin jiritaan ah maraysa xilligii jiritaanka guur aanan gaarin haddii aan u aragna annaga macnaha yani inay tahay yani gaalada maxaan ku dhahay wallahi jecel jilaan wallahi gaalada isu jecel yihiina wallahi gaalada sida yihiina sidaas oo kale ma noqono sidaas oo kale wiilasheen ma u dhaqmaan wiilasheen waxay la gabdhahan sidaas oo kale ma u dhaqmaan horta mid yaanan marka ilaabin waxaan ilaabaynin dadkan horta jiritaankii inay ku jiraan xilligii beena lagu soo xarageliyada dhihi jirnay nacam asal ahaan waa khalad diin ahaan waa khalad laakiin xilligii Soomaali ay tiri sida ayay ku jiraan adiga tusaale ka soo qaadayna marka gabadh ahow ama wiil ahow ma dhacday inaad qof wada sheekaysateen taasoo markaasi aad ka aragtay ka dareentay naxariis iyo soo jiidasho iyo farxad iyo aad istiri wallahi noloshaada tii aad rabtawa ama kii aad rabtawa ma dhacday muddadaasi xiriirkiina uu socday ilaa waxaan ka hadlaynaa xaqiiqan ka hadlaynaa muddada xiriirkiina uu socday dada waxay sheegaan su'aalaha marka la soo weydiinayo iyo yani waxaan aragnaa yacnihi
maxaan ku culimada su'aalaha marka la weydiinayo waxaan aragnaa yani qof dhahaya 2 sano wada soconay sanada wada soconay 3 sano wada soconay bal 5 sano wada soconay iyo wixii la midka kama hadlayno ma banaanta ima banaana miya kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa wada socodkaasi xilligaasi aad tilmaantay macnaha sidee xiriirka ahaa xiriir aad ku qanacsantaho ku faraxsantaho macnaha kaale araga soo ma ahayn haddii u fiirsa marka maxaad ula yaabaysaa marka kay ayagana ku jira waa kaas oo kale dhabtii weli ma aynan gaarin guurkii weli ma unan dhicin ama engagement waxaan ay ku tilmaamaan farantigeliska ma aynan gaarin maalinta ay gaaraan xaqiiqda sa ay timaado labadii qof ay isu soo baxaan ay noqdaan dad hal sariir wada qaybsada si rasmi ah oo habeen iyo maalin joogto ah hal macnaha yani maxaan ku dhahay dhaqaale yeeshaan ama dhaqaalahoodoo kala duwan xataa laakiin ay noqdaan hal meel dad ku wada bixiya cuntadii iyo kiradii iyo maxaa noloshii wixii ka dhexeeyay dharkii iyo yacni noqdaan dad hal weer wax ku wada leh ama ku wada cuna oo ay yeeshaan macnaha dad yani fikirkooda iyo horumarkooda iyo adi noloshii hal ka dhigtay macnaha marka guur noocaas oo kale ka dhaca ama engagement noocaas oo kale dhaca waxaad fiirinaysaa marka dhaqankooda soo noqdaa normal sida annaga keena uu yahay oo noqdaa inta badan oo keena soo yahay keena wuxuu yahay xaqiiqda marka ay timaado gabadhii iyo wiilka isguursadaan dabeecadihi isbaranaya inta ugu horeysa bil 3 bil sanad 2 sano sanadahaasi ugu horeeya barashadii socota waa la isku adag yahay kadib waa la isla qabsadaa isla qabsashada markay timaado waxaa dhacaya waa maxay in hadda ninka uu noqdo nin qalafsan oo aad u xun ama inay gabadha noqoto gabadh aad u qalafsan oo aad u xun ama in midkooda uu dulqaato midka kale uu roonaado ama ma ahan miya in macnaha yacnihi qof un lagu degan yahay macnaha guriga oo qofka kale uu yahay qof iska sabra yacni oo dhaha bal wax xeeriya ilmaa matalan jooga meesha ama maxaan ku dhahay yacnihi qofkan waa jeclahay ama qofkan waxaan dantaana igu jirto yani oo ah matalan kada iyo kada yani intaa oo dhan marka aan fiirino dhaqankeena waa kaasa kuwa jecelay ku wada joogaan samiray kuwa ku wada joogaan kuwa waxay ku wada joogaan dan ama daruuf markaasi jirta waxay doontaa ahaatee waasa xagga gaaladu imaw marka ayagana waxaan indhaha saarnoo aragnay kuwan romantiga iyo jaceylka iyo wanaagga aad ku sheegtay oo jiritaanka ku jiray markay dhab noqoto ay isguursadaan sida dariskeena aan ka aragnay qaar ka mid ahee marka la isguursado labay noqdaan ayagana laba waxay noqdaan kuwa horta marka ugu horeysa inta badan sida annaga xaaladda ama mara kadibna yani sideena oo kale isu fahma oo ay noqoto maxaan ku dhahay midka kale inuu macnaha samir uu kula joogo ama ay isu dulqaataan ama dan isku fiirsadaan danta marka aan leeyahay waxaan u leeyahay waxay tahay matalan carruurda dadkan ka dhexaysa gabadhan waxaa laga yahay inay dhib ku jirto waxaa laga yahay ninkan inuu dhib ku jiro laakiin carruurtaasi ay keenaysa maxay in macnaha qofkan uu sabro laakiin gaalada marka aan fiirino waxyaalaha dantay u arkaan annagoo ma aragno isku dan ma nihin waxaa laga yaabaa ninkan lacag uu haystaa keliya matalan inay u guursatay gabadhan gaalada ah nacam way dhacdaa islaamka naftigiisa way ka dhacdaa kadib markii lacagtii wixii ay ka dhammaato ay ka tagto islaamku aaday ugu yartaa arrintan maba jirtaan dhihi karnaa lacalla hadday dhacdana waa 1 iyo 2 iyo wixii la midkaa way jirtaa laakiin saa uma badna hadday jirto weeyaan macnaha marka waxaan dhahaynaa marka jiritaankaasi xaqiiqda marka ay timaado nolosha nolol normal ay noqotaa nolol waxay noqotaa maalin la wada farxo maalin la wada qoslo maalin la wada ooyo maalin la wada murugoodo noloshaana sidaa ku dhisan laakiin ka waran haddaan u aragnayba noloshii guurka dhanba inay tahay maxaan ku dhahay nolol maxaan ku dhahay waa la isku dhegan yahay garbaha la is haystaa muqaayadaa la wada aaday aan u aragnay nolosha dhan inay sidaa tahay ma ahan xaqiiq ma aha inta guurka soo martay ay dhegaysanaysa waxaad markhaati ka tihiin guurka inuu noqday qaarna uu ka noqday matalan yani uu ka halaabay qaar u wanaagsanaaday qaar samir iyo kuwada jooga qaar maxaan ku dhahay weli jaceylkooda sidiisa uu yahay macnaha siday doontaba ahaato laakiin waa wax maraaxil isbedelaya waa sida marka indhaheenan yaanan ku arkin yaanan noqon macnaha lo'dii marka la keenay meel saxra ah kadibna oo kiyaala cagaaran loo geliyey cooskii markaasi qalalay ee jaallaha noqday oo markaasi qoraxda ay dishay looga dhigay cagaar macnaha ilaa okaalay wadataa moogta oo cagaar ka dhigaya markaasay maskiinta waxay u malaysaa lo'da inay iska cunto maxay cagaar u leeyahay ilaa okaalaa ugu jireen annaga marka indhaheena waxay arkeen waa maxay waxyaalahan kor aan ka arkayno
oo telefishinada laga soo deynayo ama youtube-ka ama facebook-ka ama maxaan ku dhahay iyo wixii la midka ama maxaan ku dhahay dadkan wadajirad ka socdo ishaysto isku dhegano ka soo qaadaa nidhi shalato sida adiga ahayd saad u jiri jirtay marka waxaa meeshan ku run ah aan ku rumaynaynaa beenaa lagu soo xarageliyaa waan ku rumaynaynaa oo beentii ku jiraan yaynan marka yacni nadagin ha laakiin alxamdulilah tan kale waxay ku wanaagsan tahay runna waa lagu dhaqaa macnaha run in lagu soo xargeliyay tahay runna lagu dhaqo sida asalka oo diinta islaamka waa sidaas laakiin waxaan dhahaynaa waxaan na saameeyey dadkan na saameeyey ama gaalada aan dhahe waxa ay markaasi nagu saameeyeen been ayaa lagu soo xarigeliyaa ayaan u aragnay annaga in macnaha noloshoodanba ay sidaa tahay dad isqabana maahana ogow waa dad boyfriend iyo girlfriend weli un ku jira weli jiritaankii ku jira inaan isla fahnaan jeclahay biidn illahi tacaala hada wallahu aclam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته